السلام عليكم maanta waxaynu ka hadlaynaa fikrad fulinteedu ay fududahay laakiin faa'iidadeedu ay aad u ballaaran tahay taasi oo noloshaada si weyn wax uga bedeli doonta haddii aad ku dhaqanto dhinaca kale fikirkan ama dhaqankani waa dhaqan ay ka siman yihiin dhammaan dadka guuleystay ee horumarka sameeyay dunida waxa loo yaqaanaa dhaqankan waa diiwaangelinta noloshaada maalinlaha waana waxa afka qalaad lagu yiraahdo journalinka af carabigana la yiraahdo tadwiinul yawmiyaat marka hore waxaynu isla eegaynaa journalinka iyo macnihiisa kadibna waxaynu sharaxaad ka bixin doonaa faa'iidada uu leeyahay haddii aynu sheegno waxa uu yahay journalinku ama diiwaangelinta nolol maalmeedku markaynu soo koobno waxa weeyaan in qofkii habeenku marka uu seexanayo in uu diiwaangeliyo oo uu qoro noloshii uu ku noolaa maalinkaasi soo dhammaaday kaasi oo ka sheekaynayo waxyaabihii ugu badnaa ee uu qabsoomay haddii caqabado ka hor yimaadeen fiilinkiisa iyo shucuurtiisu maalinkaasi siday ahayd marka journalinka ama buugga habeenka marka uu qofku seexanayo uu qorayo looguma talagelin in si nidaamsan loo qoro ama si macnaha qaacido la raaco oo loogu talagalay ma jirto dhinaca kalena looguma talagelin in hadhow toole uu qof kala akhriyo laakiin waa buug aad ugu talagalayso in naftaadu ay akhrisato su-aasha haddaba isweydiinta le waxa weeyaan journalinka ama diiwaangelinta nolol maalmeedka maxay tahay faa'iidada ku jirta waxa laga yaabaa haddii iminka internetka aad ka baadho oo faa'iidooyinkiisa aad raadiso in uu kuu soo dhigo 30 ilaa 20 faa'iido wax ka badan laakiin anigu waxaan isku dayayaa inaan soo qaato oon ku soo koobo muuqaalkeenu maadaama uu yaryahay 3 faa'iido oo keliya faa'iidada koowaad oo ah ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa in aad dareento waqtigaaga iyo halka aad ku qaadato dabcan waxa laga yaabaa marka lagu dhaahdo maanta sanadkiiba dhammaaday ama sanadkiiba bilowday inay naftaadu isweydiiso intaasoo sano uu kugu dul dhammaanaya talo maxaad soo qabatay waxa laga yaabaa inay jireen waxyaabo wanaagsan oo aad qabatay laakiin maadaama ayna ku diiwaan gashaneen oo journalin aanad lahayn laga yaabo in ay saa kugu dhaafaan dhinaca kale waxa laga yaabaa inay jiraan in aanad waxba qabanin laakiin aanay naftaadu dareensanayn in aanad waxba qabanin oo waqtigaagu uu maalayacni ku baxo sida awgeed journalinka faa'iidada ugu horeysa ee ka faa'iideysi waxa weeyaan waxa uu ku dareensiinayaa waqtigaaga iyo qaabka aad u qaadato faa'iidada labaad ee laga dhaxlo journalinku waxa weeyaan waa xusuus qor dabcan maalin kasta waxa laga yaabaa inay soo marayaan dhacdooyin muhiima oo aad u kala duwan laakiin maadaama aynaan diiwaangelin waxa laga yaabaa inaad iska ilowdo ama dhacdadii oo sideediya aanad xasuusinin haddaba journalinku wuxuu ku faa'iideynayaa in sanado kadib markii aad noloshaadii aad dib u akhrisato xasuus qor wanaagsan ay ku noqoto waxyaabihii aad soo qaladay waxyaabihii aad soo faa'iideysatay maalin walba iyo halkii aad joogtay midda kale waxa weeyaan ee laga faa'iido journalinka waa in uu yareeyo xanuunka una ku badiyo farxadda waxa laga yaabaa qodobkaasoo kale inaad aad ula yaabto waxa looga jeedo laakiin waxa la ogaaday in caqliga bini'aadanku oo waxaan imika loo bixiyey meeritaanka maskaxda caqliga bini'aadanka waxa laga yaabaa inay soo waajahaan afkaaro iyo fikirro aad u kala duwan mararka qaarkood inuu qofku waa dabiici u murugoodo mararka qaarkood waxa laga yaabaa qofku inuu faraxsan yahay oo farxad badan uu dareemayo marka waxa la ogaaday qofku waxyaabihii murugadii ee maskaxdiisa ku jirtay haddii uu qoro in ay markaa ugu dambeyso oo tensionkii iyo cadaadiskii uu ka dego marka journalinku wuxuu kuu faa'iideynayaa inuu kuu diiwaangeliyo maalimihii aad faraxsanayd iyo waxyaabihii kaa farxiyey kadib dib aad u noolaato mar dambe markaad akhrisanayso iyo laxadaadkii ama xilliyadii aad murugeysnayd ee ku soo maray kadibna aad dib aad ka ogaato waxyaabihii kaa murugeysiyey iyo waxyaabihii culayska ku dareensiinayay waxaynu isweydiinaynaa haddaba qaabkee baan u samaysan karaa journaling ama maxaan u baahanahay si aan xasuus qor maalimeed aan u samaysto run ahaantii su-aasha haddaynu isku dayno inaynu ka jawaabno ma jirto wax badan oo loo baahan yahay keliyata buug iyo qalin haddii muxuu ahaye aad ku diiwaan gashanayso haddii kale ood isleedahay buugga ama qalinka waxaa laga yaabaa inuu buuxsamo ama buugaag fara badan ay kaaga baahato waxaad soo qaadanaysaa waa muxuu computer qofkii haysto kale computerkiisu ku diiwaan gashanaya mobile haddaad isticmaalayso any application program kasta oo ku saamaxaya inaad diiwaangelin aad samayso sida note-ka caadiga ee ku jira muxuu ahaye mobilka ama Google Keep-ka adoo waxa laga wadaa wax kasta oo ku saamaxaya inaad habeenkii nolol maalmeedkaaga aad diiwaangeliso markaad seexanayso ayaad ku diiwaan gashanaysaa okay haddaba iminka waxaynu eegaynaa caqabadaha ka hor iman kara marka aad istiraahdo journaling ama diiwaangeli nolol maalmeedkaaga waxaynu caqabadaha ku soo koobaynaa 3 caqabadood caqabada koobaad waxa weeyaan
in aad qorto wax aan loo baahnayn caqabadda labaadna waxa weeyaan in aad garan weydaba waxaad qorto caqabadda saddexaadna waxa weeyaan in aad joogteen weydo journalinka ama diiwaangelinta nolol maalmeedka haddii aynu mid mid usoo qaadano saddexdaa caqabadood caqabadda koowaad dad fara badanna way qabsataa waxaa laga yaabaa imika kale markaad muuqaalkan kala daawato inaad aad ugu xiisooto inaad journal aad samaysato sidaa awgeed maanta oo dhan aad buuxiso biijaj fara badan kadibna wax walba oo maskaxdaada kusoo dhaca aad qorto saakan soo kacay shaah baan cabay halkan aan tegey marka caqabadaasi aad u dhaafto waxaa loo baahan yahay inaad ogaato waxaa loo baahan yahay ee journalinka lagu samaynayaa maaha tafaasiishii noloshaada oo dhan laakiinse keliyaate waxa weeyaan waa inta muhiimka adiga macnaha ku muhiimka qodobka labaad ee ku qabsan doona waxa laga yaabaa caawa bilow haddaad istiraahdo waxa weeyaan inaad isweydiiso maxaan qoraa maxaan sameeyey maanta halkan ka bilaabaa taasina inta aad la qabsanayso waxaan kugula talinaya inaad google-ka aad ku raadiso oo aad ku qorto journaling templates marka wuxuu kuu soo dhigi doonaa template ama page muxuu ahaayey maran oo ku odhan doono buuxi matalan waxa laga yaabaa inuu ku weydiiyo saddexdii shay ee maanta kugu yaabka badneed aragtay saddex arrimood oo maanta aad ka murugootay haddii jiraan saddex shayood maanta aad faa'iidaystay adigu macnaha maadaama ay kugu cusub tahay journalinku ama aanad fikrad ka haysanin waxa uu kuu sahlayaa inaad buuxin karayso ilaa inta aad kala qabsanayso caqabadda u dambaysaana waxa weeyaan in aad joogteen weydo journalinka oo habeenna aad ka booddo habeenna aad qorto ama markaad muddo ay ka soo wareegtaba aabad ka booddo taana waxa aad kaga badbaadaysaa laba arrimood arrinta koobaad waxa weeyaan in maalinka ugu horeysa ee aad bilaabayso naftaada aad challenge ama taxaddi aad la gasho in aad ballan aad naftaada ku qaado in 100 maalimood ee soo socota aad dhammaystiri doonto journalinka ama 30 maalimood ee soo socota haddaynu soo yareynaba kadib adigiyo naftaadu shardigaas aad wada gelaysaan 30 maalimood in wax kasta oo dhaca habeen walba aad diiwaan geliso qodobka kale inuu kaga badbaadi karno in wixii aad bilowday dhexda aad kaga tagtay waxa weeyaan in buuggaagii aad ku qoranayso journalinka aad soo dhigato meel ay ku muuqato aad arkayso mar walba ama haddii mobilka kale aad ku diiwaan gashanaysay homepage-ka aad soo dhigato kule dabcan muuqaalkeenu aad buu u kooban yahay waxaan filayaa inaad fikrad aad ka hesheen oo aad ka qaadatay journalinka iyo waxyaabaha laga jeedo waxa aan doonayaa haddaba inaad ila soo tijaabiso ood caawaba aad ka bilowdo waxaa laga yaabaa in challenge-ka ugu horeeyaba uu noqdo caawa inaad isweydiisanayo caawa waxaad qortay mahay sida dib u dhig ka daa dib ha u dhigin caawaba ka bilow ugu yaraan waxa aan doonayaa inaad ila soo tijaabiso hal week habeen walbana aad diiwaan geliso nolol maalmeedkaaga kadibna adiga ogaan doona faa'iidada aad ka dhaxasho aad baad u mahadsantihiin muuqaalkeenu maanta intaas ayuu ku egyahay